dowladda hoose magaalada Berbera ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay si weyn ugu hawlaneed mashaariicda horumarineed ee asaasiga oo ah bulshada Berbera sida taakuleynta waxbarashada, caafimaadka, kor u qaadida nadaafadda iyo dhismaha wadooyinka cusub oo wax weyn ka tari doona bilicda magaalada Berbera. waxaana saaka dhagax dhigtay wado cusub oo 1 kiiloomitir ah taasoo halbowlaha magaalada mari doonta. xogayaha dowladda hoose Cabdikariin Anaade ayaa sheegay in wadadani ka mid tahay mashaariicdii 2018 ballanta dowladda hoose iyo golaha deegaanka ee magaalada Berbera waxay ahayd mashaariicdii 2018 wixii ka harsanaa in lagu dhameystiro inta sanadka ka hadhay. ballan cad bay ahayd oo reer Berbera u qaadnay anagoo ballantii fulinayna in kala duulayna in qorshihii 2018 maantana waxaanu dhagax dhigaynaa inagoo oo shalayto xariga ka jarnay wadadii xaafadda Burcasheekh bartamaheeda mareysay wada kale oo 1 kiiloomitir oo iyadii isku quality yihiin oo iyadu bartamaha magaalada ah. maryaha dekedaha Soomaaliland Saciid Xasan Cabdilaahi ayaa ku tilmaamay dowladda hoose ee Berbera mid shaqadeedii ka soo baxday. waxa sharaf aad u ballaaran oo ah inaanu shalayna ka qayb galno furutaankii wadada saakana aanu ka qayb galno tii labaad ee la dhagax dhigay. runtii maayarka magaalada Berbera waxay ka mid tahay u diyaar garowda mashaariicda waaweyn ee ku soo socda dalka. wuxuu u gagal xaadhayaa sidii degmada iyo gobolkuba ay uga qayb qaadan lahaayeen maadaama wadooyinku ay kaabayaasha dhaqaalaha ka mid yihiin. sidaan shalayba hore u sheegay anigoo xoogaala mashaariic fara badan oo degmada laga fulinaya oo soo socda aad iyo aad baan ugu ammaanayaa gudoomiyaha degmada. runtii wax qabad la taaban karo oo aan cidna qarin karin weeyaan. dhanka kalena maayirka magaalada Berbera Cabdishakuur Cidin ayaa isna ballan qaaday in ay dhameystiri doonaan inta ay xilka ka degayaan wixii ay u dhaarteen oo ahayd in ummadda wax u qabtaan. waxaan aad ugu mahadcelinayaa shacbiga reer Berbera marka ay wadada ku beeganto sida muwaadinimada iyo xilkasnimada leh ay ugu niyadsan yihiin in loogu qabto adeegaas. aad baan ugu mahadcelinayaa dadka reer Berbera. waxaan u sheegayaa golaha deegaanka ee degmada Berbera aad doorateen waqtigoodii xilkoodii madaxweynaha wuu dhamaaday. caadiyan insaanka waxa lagu yaqaan markuu cimrigiisu gabagabay yahay inkastoo maamaha Soomaaliyeed taado cimrigaagu dhamaaday ceeb laguma sagootiyo. golaha deegaanku sharaf bay ku bilaabeen, sharafna way kaga tagayaan ilaa maalinta u dambaysa iyadoo xilkoodu dhamaaday oo sugaya golihii bedelayay. waxay diyaar u yihiin ilaa maalinta u dambaysa waxay bulshadan ay u ballan qaadeen inay fusho. waxaynu wadi doonaa ilaa inta sanadku ka dhamaanayo maalinba maalin aynu dhagax dhigno mashruuc ay ummaddu leedahay oo dadku ay leeyihiin. waxaana jecelahay inaan caddeeyo oo ay bulshadeedu fahanto lacagta ay dowladda hoose ku shaqaynaysaa ma aha lacag DB Well ay soo siisay, ma aha lacag imaaraadkuna siiyay, ma aha lacag samada laga keenay, waa cashuurtii laga qaaday adiga. aakhirkiina barsaabka saaxil injineer Axmed Cismaan Xasan ayaa ku amaanay mas'uuliyiinta dowladda hoose hagarlayda ay uga soo baxeen wixii loo doortay. waxaynu ku dhex jirnaa oo aynu shalay maxaan ku idhaahdaa xariga ka jaray wadda ay dhammaystirtay dowladda hoose ee golaha deegaanku oo maayarka hormuudka ahaa. maantana waxaynu dhagax dhigaynaa wadda kale. mashaariicdii waxaan u maleynayaa sanadkii maadaama uu dhow yahay wixii ay maxaan ku idhaahdaa golaha deegaanka ee dowladda hoose kaydinaya dhan way ku soo daayeen inta bisha soconaysa maxaan ku idhaahdaa ka hadhay. وياسين جامع علي تلفزيون كعالمي جاه بولشة TV مقالة حبيت بالبراء.